خير سعد هذا كور في عناية كور عاصمة الحريقة سالويت فنك يا بينا سعوني كور والله مقالة أبني ويا مقالة ذني كان أي محاك بلونيسا شعبك إن دولة الشقيان ما الدولة دتك الشعب الدولة الشعب وضع كان قاعدين isku jahay u socdaan wadnihii beerkii bi xasaanka dawladda iyo shacabka wadnihii beerka lama kala qaadi karo marka way isla jaan qaadeen Puntland wali aad bay shacabka dawladdu isla jaan qaadeen inta halka jirtay maxaa ku garawaad maxaa isleedahay ku la yaabna ku artaan dhaqamada ama ma garawa bis way meel system ba ka jira nabad ba ka jirta marka maxaa soo oran kartaa maadaama ay wariina tahay falanqayn siyaasadeed tahay marna funti wariye siyaasadeed ahayd nabadda garow haysato maxaa sal u ah wallahi nabadda garow waa meel amniya waxaan sal u ah shacabka Puntland oo la shaqeynaya ciidamadooda iyo dawladda oo u hoggaansan shacabka marka dadkii isla shacabkii iyo dawladda iyo ciidamadii isla wada jaan qaaday marka taasaa waxay budug u tahay in noqoto garow meel bisfula waxa sal u ah wada shaqeynta shacabka dawladda halkaas shacabkana hadii wax hogaaminaya madax dhaqameedka iyagu laftigooda door muhiim ah ka ciyaaraya waxa jirta meelo badan oo Soomaaliyeed nabadda halkan ka jirta aysan ka jirin waxa uu baaqaysaa meelaha inay garow kaga daydaan anu shakhsi ahaan waxaan jecelahay Soomaaliya all of inta laagtay inay peace noqoto meel nabdoon oo nabad ka jirto oo xasiloon oo horumar ka jiro waxbarashada shaqeynayso caafimaadka shaqeynayso dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan in dadkii looga adeegayo sida aan bal ugu horumar karaa laakiin fadqalalo iyo xasiloon darro hore waa Soomaaliya soo aragtay dibna ma jeclaan doono in dib loogu celiyo marka hadda iftiin new signal ba waxba soo muuqda signal cusub marka in hore loo socdaa fiican oo dadku wada shaqeeyaan oo dhan walba laga shaqeeyo marka wax arinta bangiga ka baxdan ku jiib waddanka doorasho galay oo tahay doorashadii aqal sare xubnihii farabadan baa soo baxay Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug shabeelayna wali sugaya shilbaad loo balansayaa sabtida qoladii madasha tashi qaran doorashadaas iyo gudaha xaaladda sidee kooto la socota sidana waa aragtaa waddanku dee 4 sano baa wuxuu galaa doorasho hal mar galaa taasina waa khasab in markii 4 sano la joogo doorasho la aado marka maamuladu waxay xaq u leeyihiin inay soo xulaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyadoo aqalka sare ay soo xulayaan golaha baarlamaanka maamuladaas golaha hoose ee shacabkana ay soo xulayaan ergooyinka kala duwan ee ka imaanaya deegaanada Soomaalida hormuudna ay ka yihiin madax dhaqameedka ay soo xulayaan marka waa muhiim in 4 sano qorshe noocaas hore loo qaado muhiimadu hebel baa la doortay hebel baa soo baxay maaha yani waxa weeye dawladda Soomaaliya doorasho gashay dadkii dalkana hore u talaabsaday qof meel wala geen karaa hadhowtana waa 4 sano marka dhamaato waa la bedeli karaa wax xursho taas ku jira halka saraan su'aal ka weydiiyo maadaama tahay aqoontaada markaa fiirinay tahay aqoon ku salaysan ee bartilmaameedka siyaasadda iyo dhaqaalaha maalibihi nolosha inta badan siyaasad iyo wax nooca maamul la xiriiraad ku soo dhigtay waxa maamul gobolada marka lagu dhaliilayaa inay sameeyeen boob cad oo kuraastaas sida loo baahnaa aysan u maamulin doorashadii aqalka sare xubna xaq u lahayn tamaan ay tartamin oo laga celiyay iyadoo dad gaar ah kuraasta loo xiray maxaa arintaas adigu sareexan xaq aad sharciyada ka fiirin ma dowlad goboleedadu waxay matalaan deegaan iyo dad bay matalaan iyagana laga rabaa inay doorashadii si fiican ay u qabtaan iyadoo guddiga la shaqeynaya guddiga doorashooyinka heer maamul iyo heer federaal marka markasta doorashada waddanka ka dhacaysa waa inay noqoto doorasho xor iyo xalaal oo si siman loo siman yahay haddii markaa maamulada ay door bidaan inay iyagu doorashadii soo gacan galiyaan oo wax ka qabtaan taasina waa farshan cusub hadirto ay maamul goboleedu ay gaareen jecel yihiin sidii iyagu markaa door bidayeen in wax ku soo xulaan marka mar haddii aan dhibaato ka dhicin amni darro jirin oo waddankii u shaqeynayo
عندي اعتمادات يعني إن دور شل آدم بقى مهمة تاسع مهمة. way aad baad u dadkood طيب